inta badan golaha wasiirada xukuumadda Somaliland ayaa maanta kulan hargeysa kula qaatay wafdi ka socda qaramada Midoobay oo hogaaminayo ku-xigeenka danjiraha qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Peter Digley kulanka uu shirgudoominayay wasiirka qorsheynta qaranka Somaliland Cawaale Ibrahim Shirwac ayaa waxa diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqeynta hay'adaha qaramada Midoobay iyo xukuumadda Somaliland sidii qaramada Midoobay uga qayb qaadan lahayd kaalmeynta dadka abaartu saameysay iyo waliba barnaamijyada horumarinta markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka qorsheynta qaranka Somaliland Cawaale Ibrahim Shirwac oo faahfaahiyay dulucdii ay kaga wada hadleen kulankaasi ay la qaateen madaxda ka socota qaramada Midoobay waana kan isagoo arintaasi ka hadlaya maanta waxa halkan nagu soo booqday wakiil ku-xigeenka ninka u fadhiya qaramada Midoobay waxa uu noogu yimiday kadib electionkii doorashooyinkii dhacay ee successfulka ahaa waxa uu soo jeestay wadankeena dadka aynu la shaqeyno partnerskeena United Nationska iyo wadamada kaleba waxay muujiyeen inaynu horumar ka sameynay deganaanshaha iyo dawladnimada waxaan wada yeelanay sida ay wasiiradii kale oo halkan ila jooga wada hadal dheer oo ku saabsan horumarka qaranka iyo sidii wadankeena ay u gaarsiin lahaayeen fariintan horumarkan ka sameynay dhinacyo walba Mr. Peter Clark noo sheegay inuu ku faraxsan yahay doorashooyinka dhacay iyo horumarkan sameynay in uu nagala shaqeyn doono horumarka anaguna aad baan ugu faraxsanahay waxaan u ballan qaadnay inaanu kala shaqeyno dhinac walba ku-xigeenka safiirka qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter Digley waxa uu sheegay inay Somaliland ka caawin doonaan kaalmeynta dadka abaartu saameysay iyo waliba qorshaha horumarinta ee 5 sano ee soo socda. We've just had very fruitful discussions with most of the cabinet members here in Somaliland. This is part of our regular and intense discussions with Somaliland on their priorities, in particular the National Development Plan, the version number 2 of which was just launched. We're looking very much forward to a very close cooperation with Somaliland, particularly on the issues of the drought that continues to plague the country and that requires a lot of support and a lot of international backing of the Somaliland authorities here, as well as, of course, the development efforts and then in particular how we can increase the food security in this country.